xildhibaano waxgarad iyo sidoo kale odayaal ka soo jeeda gobolka Banaadir ayaa ka soo horjeestay go'aanka madaxweynaha dawladda Soomaaliya ku aadan dhinaca dhulka. Wariyahana Zainab Maxamed Aadan ayaa warbixinta warkan Muqdisho inooga soo dirtay. shirkani jiraayad ayaa xalay saqdi dhexe waxaa Muqdisho ku qabtay odayaasha iyo waxgaradka deegaanada gobolka Banaadir waxayna ka soo horjeesteen qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. qoraalkaasi oo ka hadlayay dhulalka danta guud ee ku yaala Xamar. ugu horeyn shirka jiraayad waxaa ka hadlay Muxyidiin Xasan Afrax waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in gobolada oo dhan ay si isku mid ah loola xisaabtamo oo aan lagu soo koobin gobolka Banaadir oo kaliya. Muqdisho oo kaliya taasna dawladdu waxay ku leedahay degmo kasta iyo gobol kasta waxay ku leedahay deegaano xafiisyo ay ku leedahay. waa fiican tahay in laba gaar oo la ogaado meesha ay ka jiraan wax la hor istaagi ma laha waa wax Soomaali qusaya ee tooyan noqon wax gaar Boqor Cabdullaahi Geedi Shadoor ayaa sheegay in madaxda qaar ay ka soo horjeedaan shirka looga hadlayo maqaamka Muqdisho. dadkaas wuxuu diidan yahay oo dhibsaha brandir dhismadiisa dadka dhibsayo dhamu ka soo horjeeda qoftii dhibsayso oo la arkana waana dhibaysaa taas ma rabno waxna dhibaya in ma rabno wax dadka dhibaana u dhaweeyeen brandir wixii dhibaana waana dhibaya waxaan u jeednaa warqada la soo qoray oo madaxweynuhu uu soo qoray oo la leeyahay la xisaabtan iyo xisaab xilmale iyo gudiga loo saaraa iyo waxyaalka uu sheegayo oo warqadaas ku yaala waxaan u qaadanay waxa la yiri hal maqaamka Banaadir hal la muujiyo 20 ka la mudeeyay mudadeetii hore loo mudeeyay waa baajiyeen midaana haddana lagu celiyay midaanay haddana ka hor ma hayaan ujeedadooda saas ay nalata. ugu dambeyntii duubabka iyo waxgaradka beelaha deegaanada gobolka Banaadir ayaa soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa dhowr qodob oo ay ugu weyneed waxa kulmiyay warqada madaxweynaha iyo shirweynaha ka tashiga aayaha gobolka Banaadir. annagoo ah qaar ka mid ah duubabka iyo waxgaradka beelaha degan gobolka Banaadir waxaan walaac ka muujinaynaa qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. haddaba waxaan soo jeedinaynaa qodobo badan oo halkan ku qoran idinko dadka shacabka iyo kulli ay wada og yihiin in duubabkan hore ugu jireen ka hortagida xasilinta iyo dhibaatooyinka gobolka Banaadir ka jiray hore arrimo ka dhacay ugu jireen. haatan waxay soo jeedinayaan go'aanadan waxaan soo jeedinaynaa ilaalinta oo inay waajib tahay in la ilaaliyo hantida qaranka iyo dawladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo. waxaan kala soo jeedinaynaa in hantida qaranku ay taalo meel walba oo dalka Soomaaliya. Zainab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.